السلام عليكم asxaabta ku jana ku soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale laakiin haas forex hadaba hadii ay tahay markii kugu horeyso boqoto janaalka muuqaalkan la garay sidoo kale intood si share garay caawa waxaan doonayaa muuqaalkan in ku wadaago qaabka loo sameeyo journaling ama notion kaaga qaabka aad professional uga dhigi lahayd hadii aad ku wareersaneed maanta wixii ka dambeeya ma ku wareeri doontid insha Allah ogownay journalingku waa qayb kamid ah successka suuqa forex hamoodin suuqa forex in si easy lacag looga sameeyo kaliya waxa u baahan tahay inaad gelisid waqti journaling fara badan aad sameeyid marba ina warban ku daaliyo ina keena muuqaalka waxa sameynaysaa notion markii aragtid koob inuu ku bilaamo waxa tegaysaa balas canvas ka dhufsana meel cusub ku keenaa soo maahan icon kan sidana u waxaysanaysaa aad coverka aragtid aad dooranayda waxaan hadda ku tusay coverka aragtid aad dooranaysaa coverka aragtid marka dooratid magac baa u bixinaysaa trading journal 2024 okay marka sidaas aad comment yeelaysaa meeshan waxa ku qoranaysaa suuq maanta oo maahan ama ku yar socod qodox ma muddo suuq maanta oo maahan suuq maanta oo maahan okay kadib upload kana taabanaysaa hawshaadi ay imaanaysaa slash ka taabanaysaa trading view tegaysaa table ama table and trading and table view guys aku dhufsanaysaa marka ku dhufatid sidaan oo ku noqona sida markuu ku noqdo waxa sameynaysaa meeshan waxa ku qoranaysaa entry table ka meeshan waxa ka dhiganaysaa bisha ku qoro July okay intaas marka sidaas aad u sameeysid kama soo sigsanaysaa meeshan waxa leedahay magac ka bedelaysaa waxa leedahay Paris leedahay ama beer leedahay hal beer hada trade kale rabtid meeshan waxa ku qoranaysaa euro USD okay inta marka ku qorto euro USD meeshan waxa ku qoranaysaa waxa leedahay date taariikhda idida leedahay type ka si dooranaysaa date oo ku kaasa waa iska soo yareynaysaa maadaama date ka waqtigiisu yahay meeshan waxa ku xujinaysaa waxa leedahay days kadib sagane waxa leedahay type ka taabanaysaa select ya dooranaysaa select marka dooratid add option Monday also gagabina Tuesday Wednesday Friday intaas marka ku yeesatid waxa sameynaysaa dayskayga waa iska gaaminaysaa meeshan waxa leedahay marka position leedahay marka position saddexda xariiqna taabanaysaa type ka taabanaysaa select ya leedahay add option short position or long position short position long position so gaabi okay intaas waa ku dartay haddana waa xiriiraysaa kan inta haddana waxa taabanaysaa waxa leedahay session intaas sidana u sameynaysaa marka fiiri session select ya leedahay halkaana waxa ku qoraysaa London NY labadaas haddana saasa u dooratay okay halkaana waxa ku qoraysaa buys haddana buyska selection leedahay select ya leedahay sorry ida ku dulfana edit property aan ku jeedaa type ka ku jeedaa select yan dhaha select markaan dhaho add option antega
حلها sell إنه نقطة إيوه إنه نقطة buy sell أما buy موجودة لو اسمت كود النقرة أنت اسمك كايستيد حلها هاي RR كيجا وحكريجنا number format حكريجنا number format أو number وكان number format type كوسيجي percentage لأن 3RR 2RR percentage وبهذا صمة أنت اسمك كاسميستيد أنت I think واحد كرسو عرفتيد وأقدر سكرتها مش سهلة لكن ماشي عرب ماشي واي ماشي أنا كنت تسأله سوي راسوقاتي ماشي أوبنتان كوجيدي سفيري أوبنتان أو كوجيدي سادكي كوعيو تريد جونال كاننا وكان مجدا يورو USD waxaan oo dhan markaa samaysatid halkaas obinta ay ku qoran tahay dhag ku siinaysaa dhag markaa ku siisid halkan sidaan ku soo bixi soo qodobadaadii waxaan dhan meeshaan ku soo baxaan inta imaanaysaa meeshaan waxaa leedahay daily chart ilaan sawirka meesha way ka wasaqeynaysaa daily chart halkaas aad taabanaysaa halkaas meeshaas muuskan ku ayaa taabanaysaa 10 into 1 ka dhigaysaa toggle 1 okay meeshaan waxaa ku qornaysaa suuqa tusaale maanta waxaan ka sugayaa fursad buy waayo waxaan haystaa old IOF buy sidoo kale OB waa bala waxaas leedahay kadib sawirkiya post soo leedahay meeshaas way xiranaysaa markaa haddana 4 hour ka tagaysaa 4 hour ka labadii candle ee ugu horeysay waxay ku sameeyeen meeshan gelinaysaa hadal raacsiisanaysaa 1 hour ka sidoo kaleeto intriga sidoo kaleeto before kana sidoo kaleeto after kana sidoo kaleeto inta wada gashanaysaa marka save ku waay halkan oo kaleeto comment yarisa waxa leedahay comment meeshaan ku qor commentiga trade-ka ku qaata adoo soo gagaabinaysid waxaan ku qaad suuqan IOF ka suuqo buy sidoo kaleeto waxaa haystaa order flow buy sidoo kaleeto waxaa haystaa fair value ka bis خلاص meeshaas sidaas ku samaysatay marka waa intaas buu waxaan filayaa in wax badan aad ka fahantay sax hadda isku day marka inaad adiguna samaysatid hadda wixii ka dambeeya aan isku imaano professional notion sidoo kaleetoodna ku raaxayso analyze kaaga haddii ay tahay journalinka iyo haddii ay tahay backtesting ba warsan iyo salaamaad